maanta waa maalin weyn, waa maalin tilmaaman, waa maalin adduunyadu ay u astaysatay inay noqoto maalinta lagu xuso aqoonsiga dadweynaha. haddaan Soomaali nahay, innaga tilmaanta ay maanta inoo leedahay waa maalin qofka Soomaaliyeed uu ka jawaabayo waa kuma tahay. haddii aan jawaabo gaagaaban ama juz'iya oo kooban aan haynay kuma tahay, yaa tahay, qolamaa tahay, reerkee tahay, oo qofku deedna uu sheegan jiray qabiilkiisa iyo jifadiisa. maanta waxaynu taaganahay meeshii aynu wax intaa ka weyn oo dhammaanteen aynu ka soo wada jeedna aan sheegan lahayn, oo ah anigu waxaan ahay Soomaali. sharaf iyo karaama inoo tahay inay maanta aynu daah furanayno identity-geeni oo inoo abtirinayay, oo laynagu aqoonsanayay, innaguna aan isku aqoonsanayn. waa maalin weyn oo aan daah furayno aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed. waxaan maanta xusid mudan sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay. waxaan nahay mujtamac adkaysi badan, mujtamac markay loo baahdo gacanna ku dirira oo cadowga kula dirira, gacanna ku dhista hay-adihiisa iyo dowladdiisa. maanta waxaa tilmaan inoogu filan haddii lixdameeyadii la odhan jiray doorashadana gacan baan ku gelaynaa, gacanna dalan ku difaacaynaa. maantana waxay taagan tahay in wasiirkii ay ahayd halkan inuu joogo, oo wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta inaad arkayseen asagoo tuuto qaba oo safka hore ku jira oo xoreynaya dalka. waxaan salka u dhigaynaa maanta nidaam aqoonsi oo lagu kalsoon yahay, oo loo dhan yahay. aqoonsi lagu kalsoonaan karo waa furaha kalsooni dhex marta bulshadeenna dhexdeeda. oo yaa tahay, dariskow yaa tahay, ka ardaygow aan isla nahay ee ag fadhiyow kuma tahay, aan isku aqoonsan karno. bulshadeenna dhexdeeda ayuu kalsooni abuurayaa. wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa qofka iyo dowladda. wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa bulshada iyo dowladda. wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa iyo inay wada shaqeeyaan dadkeenna Soomaaliyeed iyo dadyowa kale ee caalamka. waxaan yeelanaynaa aqoonsi casri ah oo waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee lagu maareeyo aqoonsiyada. aqoonsigu wuxuu halbowle u yahay dowladnimadeenna. maanta oo ku beegan sidaan sheegnay maalinta sida gaarka loogu xuso aqoonsiga dadweynaha, waxaa guul u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aan salka u dhignay nidaamka asaga ah oo furaha u noqon doona sidaan sheegnay dhinac walba oo bulshadeennu ay u baahan tahay. waxaan daah furaynaa aqoonsiga dadweynaha, waxaan daah furaynaa shirweynaha aad halkan u fadhidaan. waxaan dhammaanteen isugu hambalyeynaynaa guusha aan gaarnay iyo riyada inoo miro dhashay. xukuumadda dan qaran waxay meel marisay sharciyadii loo baahnaa si loo aas-aaso hay-adda diiwaangelinta dadweynaha. waxay meel marisay sharciga lagu dhisay hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha, oo maanta ayadu inagu hogaaminaysa mashruucan furitaankiisa. sidoo kale xukuumaddu waxay meel marisay
sharciga dhowrista xogta sidoo kale waxay gacanta ku haystaa shuruucda la xiriirta amniga internetka iyo shabakada isgaarsiinta cyber security aqoonsiga dadweynaha wuxuu wax wanaagsan ku soo kordhin doonaa sida la sheegayba ganacsiga gaar ahaan wuxuu dhibaatooyin badan ka xallin doonaa bangiyadeenna curdanka ah shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha sidoo kale iskuulada jaamacadaha isbitaalada iyo dhammaan hay'adaha adeega bixiya ayuu u fududeynayaa si gaar ah wuxuu xal u yahay been abuurka aqoonsiga qofka oo la been abuurto wuxuu xal u noqon doonaa khasaaraha ka dhasha isla xisaabtan la'aanta maadaama aan la is aqoonba wuxuu si weyn wax uga qaban doonaa shabakadaha argagixisada iyo dhammaanba haddii ay noqoto dhinaca maaliyadda iyo dhinaca dhaqdhaqaaqooda kale intaba xadidaad weyn ayuu ku samayn doonaa oo ku soo kordhin doonaa wuxuu kor u qaadi doonaa ka qayb qaadashada dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadeed ee dadweynaheena ay xaq u leeyihiin waa wixii inclusion financial inclusion wuxuu fududeyn doonaa tayeyn doonaa adeega muwaadiniinta loo qabanayo wuxuu isku xiri doonaa dadkeena saan sheegay iyo dadyoga kale caalamka guushan oo aan maanta gaarnay waxaa kaalin weyn ka geystay sida la sheegay dawladda aan walaalaha nahay ee Pakistan waana u mahadcelinaynaa si gaar ah waxaa runtii ayadana loogu mahadcelinayaa hay-adda isla dalkaas walaalaha nahay ee nadra oo hirgelisay nidaamkan tababartay hay-addeena nira sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bangiga adduunka oo ka geystay taakulayn farsamo oo socotay muddo dheer socotay maantana mina dhashay waxaa runtii mahad mudan inaan xusno maanta laga bilaabo waxaynu noqon doonaa una tallaabsan doonaa ku tallaabsan doonaa inay dadkeennu helaan xaq aasaasi ah oo ah xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin oo ah inay helaan ID-gooda inay helaan national ID-gooda inay helaan taasi waxay fududeyn doontaa inay waa enabler ama u fududeyn doontaa inay access gareeyaan xuquuqda ay leeyihiin ee dimuqraadiga sidaad og tihiin dalkeenna waxaa soo socda haddii ilaahay idhaahdo doorasho ka bilaaban doontaa counsilladii iyo majaalistii maxalliga ahayd kuna dhammaan doontaa in madaxweynihii lagu doorto intaas ka hor waxaynu u baahan nahay dadkeennu in registration loo sameeyo oo aqoonsigooda ay haystaan si dadkeenna loo tiriyo si ay u hirgasho nidaamka dimuqraadiyadeed ee aan ku tallaabsannay horeyna ugu dhaqaaqnay waxaa runtii ayadana u hambalyeynayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo ay u rumowday riyadeedii ahayd inay hirgeliso aqoonsiga dadweynaha oo midaysan heshiisna lagu yahay haddaba hay-adda nira waan u hambalyeynayaa wasaaradda arrimaha gudaha waan u hambalyeynayaa waxaa laydinka filayaa wada shaqayn hufnaan feejignaan iyo dhowrista xogta qaran ee aad gacanta ku hayn doontaan waxaan faraynaa howlwadeennada dhammaan hay-adaha dawladda inay dhowraan amniga xogta dadweynaha iyo badqabkeeda isla markaana inay si toosa ula shaqeeyaan fududeeyaan hay-adda nira shaqadan qaran ee ay wado aqoonsigani waa adeeg bulsho oo loogu talagalay horumarka dhaqan dhaqaale ee dadweynaheenna waana xaq aasaasi ah oo qof walbo muwaadinihii uu leeyahay maanta sidaan sheegay maalin weyn ugu dambayntiina waxaan rabaa inaan halkan kaga dhawaaqo
in uu furan yahay aqoonsiga dadweynaha ee Soomaaliyeed sidoo kale waxaan rabaa asagana inaan idin furo shirweynaha koowaad ee ay hay'addu soo qaban qaabisay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.